murtiyey maguura taariikh la soo maray sheeka micnayse xamar waa madhaafaan kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka sahanka dalka oo asbuuc waliba aad ka daawan doontaan xusujoog media. barnaamijku waa barnaamij aan ugu talagalnay ku sahan tegidda iyo dib u xasuusashada dalkeena. barnaamijka asbuucan waxaan ku eegi doonaa gobolka Banaadir waa tuma magaalada caasimadda ee Muqdisho. haddii aad tahay qof ku cusub channelka subscribe saar oo taabo gambaleelka si aad u noqoto qofka koowaad ee saaxiibka la ah xusujoog media. saaxiib waxaan ku leeyahay nala soco. murtiyey maguura taariikh la soo maray sheeka micnayse xamar waa madhaafaan. muqdisho waa astaanta qaran oo waddankeena uu leeyahay. waa magaalo ay ku faanaan ku dhawaad 15 milyan oo Soomaali ah kuwaasi oo ku kala nool gudaha dalka iyo dibadda. muqdisho waa magaalo caan ah oo taariikh fog leh sida ay wariyaan ama laga soo guuriyo buugaagtii lagu diiwaan geliyay taariikhaha kala duwan ee laga aruuriyay magaalada caasimadda ah muqdisho uu ka mid yahay Rixilaad Ibn Batuuta. magaca magaalada muqdisho waxaa la sheegaa inuu ka yimid maqcad shaah. waa magaalo ay ku soo xiran jireen dadka safarka ku maraya badweynta Hindiya, taasi oo ku tusinaysa in muqdisho ay leedahay taariikh fog. waxaa la sheegaa in muqdisho ay tahay magaalo jirtay ka hor diinta islaamka. sidoo kale dadka qaar ayaa sheegay in magaalada muqdisho ay tahay magaalooyinkii uu sameeyay amiirkii dowladdii Umayyiyiinta Cabdilmalik ibn Marwan. balse waxaan shaki ku jirin in muqdisho ay tahay magaalo taariikhi ah oo saldhig iyo hoggaan u noqotay halgankii iyo ilbaxnimadii ummadda Soomaaliyeed. waa magaalo dhacda xeebta badweynta Hindiya oo dekad iyo garoon leh, kuwaasi oo dhaca degmooyinka Xamar Jajab iyo degmada la deriska ah ee Waaberi. waxaa la tilmaamaa in muqdisho ay caan baxday ka hor inta aan la qodin kanalka caanka ah ee Suways, kaasi oo la qoday intii u dhaxaysay 1859 ilaa 1869, waxaana si rasmi ah loo furay 17 bishii November sanadkii 1869. sidoo kale muqdisho waxa ay leedahay xeebta ugu dheer 18 gobol, taasi oo shacab badan ay u soo dalxiis tagaan maalmaha fasaxa ah. waxayna dhacdaa degmada Cabdilcasiis, waana xeebta dheer ee Liido. muqdisho gobol ahaan waxa ay hoos timaadaa gobolka Banaadir, kaasi oo kamilay 18 gobol oo guud ahaan uu ka kooban yahay dalkeena Soomaaliya. gobolka Banaadir qarniga aynu noolnahay ee 21aad waxa uu ka kooban yahay 17 degmo. waxaa ka mid ah degmada Cabdilcasiis waxaa ku yaalo masjidka Cabdilcasiis oo dhisan in ka badan 5 qarni. Boondheere, Shibis iyo Shangaani, Xamarweyne iyo Xamar Jajab, kuwaasi oo ah degmooyinka ugu faca weyn magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir. marka lagu daro degmada Warta Nabadda oo ay ku taalo xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya, wasaaradda warfaafinta iyo garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho, degmada Dayniile, Hodan, Howlwadaag, Wadajir, Dharkeenley iyo degmada Kaxda oo dhawaangal ku ah gobolka kuna soo biirtay dhawaan iyada oo kamishay 17 degmo uu ka kooban yahay gobolka Banaadir. ku dhawaad 30 sano oo muqdisho ay wajahday xaalado kala duwan, waxaa hadda soo laabanayo maqaamkii iyo astaantii ay ku lahayd caalamka iyo Afrika. waxaa ku yaalo goobo si wanaagsan loo qurxiyay oo ay hirgeliyeen muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalka dib ugu soo laabtay iyo kuwa ku sugnaa. muqdisho waxay ka turjuntaa in ummadda Soomaaliyeed ay yihiin 159 ilaa 1869, waxaana si rasmi ah loo furay 17 bishii November sanadkii 1869. sidoo kale muqdisho waxa ay leedahay xeebta ugu dheer 18 gobol, taasi oo shacab badan ay u soo dalxiis tagaan maalmaha fasaxa ah. waxayna dhacdaa degmada Cabdilcasiis, waana xeebta dheer ee Liido. muqdisho gobol ahaan waxa ay hoos timaadaa gobolka Banaadir, kaasi oo kamilay 18 gobol oo guud ahaan uu ka kooban yahay dalkeena Soomaaliya. gobolka Banaadir qarniga aynu noolnahay ee 21aad waxa uu ka kooban yahay 17 degmo. waxaa ka mid ah degmada Cabdilcasiis waxaa ku yaalo masjidka Cabdilcasiis oo dhisan in ka badan 5 qarni. Boondheere, Shibis iyo Shangaani, Xamarweyne iyo Xamar Jajab, kuwaasi oo ah degmooyinka ugu faca weyn magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir. marka lagu daro degmada Warta Nabadda oo ay ku taalo xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya, wasaaradda warfaafinta iyo garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho, degmada Dayniile, Hodan, Howlwadaag, Wadajir, Dharkeenley iyo degmada Kaxda oo dhawaangal ku ah
gobolka kuna soo biirtay dhowaan iyada oo kamishay 17 degmo uu ka kooban yahay gobolka Banaadir. Ku dhawaad 30 sano oo Muqdisho ay wajahday xaalado kala duwan, waxaa hadda soo laabanayo maqaamkii iyo astaantii ay ku lahayd caalamka iyo Afrika. Waxaa ku yaalo goobo si wanaagsan loo qurxiyay oo ay hirgeliyeen muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalka dib ugu soo laabtay iyo kuwa ku sugnaa. Muqdisho waxay ka turjuntaa in ummadda Soomaaliyeed ay yihiin 100% muslimiin, waxaana ku yaalo masjidyada ugu facaweyn dalka sida masjidka Arbaca Rukun, Xamarweyne, Marwaas, masjidka Isbaahaysiga Islaamka iyo masjidka Cabdilcasiis oo dhisan ku dhawaad 5 qarni. Sidoo kale gobolka Banaadir waxa uu hogaamiyaa waxbarashada wadanka, waxaana ku yaalo iskuuladii ugu horeeyay ee dadku wax ku bartaan iyo jaamacado sida iskuulkii Allaahida iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Muqdisho waxa ku yaalo dhismayaal taariikhi ah iyo wadooyin caan ah. Muqdisho waxa ay gooni la noqotay astaamo loo sameeyay xornimada maanta qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed uu harsanayo, waxaana ku yaalo taalooyin caan ah kuwaasi oo magaalada Muqdisho dhammaantood ay ku wada yaalaan. Axmed Gurey, Sayidka, Xaawataako, Dhagaxtuur iyo taalada Daljirka Dahsoon, taasi oo loo dhisay muwaadin waliba oo aan la garanaynin oo naftiisa u huray maalin qurana wax u sameeyay sidii loo gaari lahaa xorriyad taam ah oo dalku u gaaro. Muqdisho waxaa dhex mara oo la isaga gooshaa 4 wado kuwaasi oo muhiim u ah isku socodka magaalada iyo gaadiidka, waxayna kala yihiin wadada Maka al-Mukarrama oo ah wadada ugu mashquulka badan, wadada Wadnaha, Sodonka iyo wadada Warshadaha, taasi oo cirifka u xigta magaalada Muqdisho kuna xiran labada ex control ee magaalada laga waardiyeeyo. Muqdisho waxaa laga soo galaa labada control ee ex control Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe iyo ex control Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasi oo laga hubiyo waxa soo gala iyo waxa ka baxa magaalada Muqdisho. Gobolka Banaadir waxa uu xuduud la wadaagaa gobolada Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, isagoo sidoo kale xuduud dhanka badda ah la wadaaga Badweynta Hindiya. Gobolka Banaadir iyo magaalada caasimadda ee Muqdisho intii ay jireen garoon leh, kuwaasi oo dhaca degmooyinka Xamar Jajab iyo degmada la deriska ah ee Waaberi. waxaa la tilmaamaa in Muqdisho ay caan baxday ka hor inta aan la qodin kanalka caanka ah ee Suez, kaasi oo la qoday intii u dhaxaysay 1859 ilaa 1869, waxaana si rasmi ah loo furay 17 bishii November sanadkii 1869. sidoo kale Muqdisho waxa ay leedahay xeebta ugu dheer 18 gobol, taasi oo shacab badan ay u soo dalxiis tagaan maalmaha fasaxa ah, waxa ayna dhacdaa degmada Cabdilcasiis waana xeebta dheer Liido. Muqdisho gobol ahaan waxa ay hoos timaadaa gobolka Banaadir, kaasi oo kamilay 18 gobol oo guud ahaan uu ka kooban yahay dalkeena Soomaaliya. Gobolka Banaadir qarniga aynu noolnahay ee 21aad waxa uu ka kooban yahay 17 degmo. waxaa kamid ah degmada Cabdilcasiis waxaa ku yaalo masjidka Cabdilcasiis oo dhisan in ka badan 5 qarni, Boondheere, Shibis iyo Shangaani, Xamarweyne iyo Xamar Jajab, kuwaasi oo ah degmooyinka ugu fac weyn magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir. marka lagu daro degmada Warta Nabadda oo ay ku taalo xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya, wasaaradda warfaafinta iyo garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho, degmada Dayniile, Hodan, Howlwadaag, Wadajir, Dharkeenley iyo degmada Kaxda oo dhawaangal ku ah gobolka kuna soo biirtay dhawaan iyada oo kamishay 17 degmo uu ka kooban yahay gobolka Banaadir. Ku dhawaad 30 sano oo Muqdisho ay wajahday xaalado kala duwan, waxaa hadda soo laabanayo maqaamkii iyo astaantii ay ku lahayd caalamka iyo Afrika. waxaa ku yaalo goobo si wanaagsan loo qurxiyay oo ay hirgeliyeen muwaadiniin Soomaaliyeed oo dalka dib ugu soo laabtay iyo kuwa ku sugnaa. Muqdisho waxay ka turjuntaa in ummadda Soomaaliyeed ay yihiin 100% muslimiin, waxaana ku yaalo masjidyada ugu fac weyn dalka sida masjidka Arbaca Rukun, Xamarweyne, Marwaas, masjidka Isbaahaysiga Islaamka iyo masjidka Cabdilcasiis oo dhisan ku dhawaad 5 qarni. sidoo kale gobolka Banaadir waxa uu hogaamiyaa waxbarashada wadanka, waxaana ku yaalo iskuuladii ugu horeeyay ee dadku wax ku bartaan iyo jaamacado sida iskuulkii Allaahida iyo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Muqdisho waxa ku yaalo dhismayaal taariikhi ah iyo wadooyin caan ah. Muqdisho waxa ay gooni la noqotay astaamo loo sameeyay xornimada maanta qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed uu harsanayo, waxaana ku yaalo taalooyin caan ah kuwaasi oo magaalada Muqdisho dhammaantood ay ku wada yaalaan. Axmed Gurey, Sayidka, Xaawataako, Dhagaxtuur iyo taalada Daljirka Dahsoon, taasi oo loo dhisay muwaadin waliba oo aan la garanaynin oo naftiisa u huray maalin qurana wax u sameeyay sidii loo gaari lahaa xorriyad taam ah oo dalku u gaaro. Muqdisho waxaa dhex mara oo la isaga gooshaa 4 wado kuwaasi oo muhiim u ah isku socodka magaalada iyo gaadiidka,
waxayna kala yihiin waddada Maka al-Mukarrama oo ah waddada ugu mashquulka badan, waddada wadnaha Sodonka iyo waddada warshadaha taasi oo cirifka u xigta magaalada Muqdisho kuna xiran labada ex control ee magaalada laga waardiyeeyo. Muqdisho waxaa laga soo galaa labada control ee ex control Balcad gobolka Shabeellaha Dhexe iyo ex control Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasi oo laga hubiyo waxa soo gala iyo waxa ka baxa magaalada Muqdisho.